balabwan maansada ugu horeysa ee aad bulshada la wadaagaysi toddobaadkani magaceeda xilligay curatay iyo maansada waxay ka hadlayso daawadayaashu way kaaga fadhiyaan inoo bilow. bismillaahir rahmaanir rahiim. maansada waxa la yiraahdaa magaceeda qiraal. maansada qiraal waxay ku timi uun bulsho dadku inta badan kama fikiraan danahooda iyaga bulshanimo waxay ka fikiraan dan shakhsi gaar ah leeyahay oo kulay maansadu kama badna dhinaca qabyaaladda waxay kaloo tilmaamaysaa dhinacyo badan oo kamid ah bulshadeena oo qabyaaladda qudheedu cid gaar ah bay u shaqaysaa sidaad ogtahay warsabow qabyaaladana cid gaar ah baa wax ku cunto wad iska ogtahay bal maansada inoo gudagal. maansada waxay odhanaysaa wanaagga dad laga qarshiyo waxaan nahay duul qariban surkiyo qoortood la suray qardhaas beenu hawe ah bulshadan qayrkeed ka tegay hantida laga qaadayona hub iyo qori loogu gado qariib baan nahay ilbixin marada qool lagu cuniyo sharciyo qaynuun hawo ah dad gaari qadhaab ku helo miyaydan kaba qancayn quruumo dhan oo rogmada mid aan qaladkaagu dhibin durbaan qaaliya ku soor miyaad qiirada ka bixin daraato qarmaajowgii waxaad jalay qaayibtiyo khasaarihii kugu habsaday miyaa taariikh ka qorin qiimaha aad leedihi iyo qadarin ruuxaan ku siin codkaagii kaa qaldamay miyaadan ka qoomamayn qushuucbiinlahanku hoday waxaad qabto aan ogeyn miyaadan qadkiisa garan qadiyada aan jirin fahmayn dadkani waa qoon la falay quluubtaan la hadlayay iyo hankaagiibaa qallalay qalfoofta noqdoo ingegay soomaali qalloocane hubkiiyo qorigaad sidiyo qabkiyo isla weyni madhan qabyaalad miyaadan dayn bulshadan qayrkeed bulshadan kala qaybsan iyo qolaal aad kala xidhiyo maxay qoloqolo ku taray khasaare waxaan ahayn qabaa'ilka reerihi iyo adduun kala wada qoqoban quraac keebaa ku helaa cariyaa qiil sheegi karaa qof waaxidi muu jiraa qiraale ayaa ka furay talow yaa qood ku cuna kolay qolof liida tahay miyaa qado laga dhexlaa qadoodii waxaan ahayn in qaran lagu waayo iyo qax iyo duni lagu rogbado quluubtu hadmay biskoon qareen goormaynu heli khilaafkeennani xallilaa qardoofo miyaynu dayn qiyaaliga ina hudiyo miyaan qowlaysatadan qaraar laga gaari karin khiyaanada laga ilbixin qiirada beenbeenta iyo khasaare miyaadan dayn had muuqoolkani ka bixi dadkani qunu toosayaa waxaan arkayaa qar iyo inaan qow saaran nahay qofiyo meel daran ku yaal hankeennuna qooman yahay haraad badan baan qabnaa danteennii baa qayiran miyaynaan quus aqoon qaniicadu waa sidee quruun la qafaashay iyo waxaan nahay duul qaracan qolaal loo kala jarjaray cunsuri qayb ka dhigay qabyaaladu waa hungii hubkiiyo qorigeer baltuur go-aamoon qaadane qulubta wanaag ku soo abwaan bulay waxay la tahay maansadaasi ka hadlaysay qabyaaladda iyo dhibaatada ay leedahay qabyaaladdu dad badan baa ku qudro qaadan doona isla markaasna ay dareenkooda bedeli doontaa bal abwaan maansada labaad ee daawadayaasha in la wadaagayo inoo gudagal. bismillaahir rahmaanir rahiim. maansadan waxay ka hadlaysaa uun sida ay soomaalidu maanta dhaqan ahaan ay u dhaqanayso iyo siday u baaba'ayso iyo siday cadowgeeda u hiishanayso mid kastaaba cadowgiisa u hoosteeyo u baryayo unbay maansadani ka hadlaysaa. waxay odhanaysaa dad yahow dhoohani ma dhiidhidid ma dhaadid wixii ku dhabar tiray ma dheehdid dantaada dhaawacan dhafoorka caqligu ma dhiirado dhugtiyo qorigaad ku dheeshaa dhufaanta ninkaaga dhiidhiya dhammaysay raggii ku dhiqilaa dhigaaga qubtaad ku dheregtaa dhabtii raynrayn ka dhaxashaa dhaayaa araggiyo dhegaanba qabtooy dhakadu garashada ma dhaadana dhammaan qalbigaa ku dhaawacan midnimo dhimatoo ma dhalan doonto dhabbada guushiyo dhigeed maarkaay dhawaaq niitiyo dhaliil jeceley dhukaanka cuniyo dhurwaamo ogey iskeeda dunshaay dhasheed qalatooy dhibteedka helaay dhulkeed nacibey dhalliinta qurxoon dhantaali ogey dhabbada adowgaa ayaad dhaxashee maxaad dhisataa dhaqaale heshaa dhugtii qorigaad dhabtii jeceshoo dhisayn sharcigii ka dhegoliid maxaad dadqataa ka dherigtaa adaa dhidadii ka dhaanso isle waxay dhigatiyo dhitada daadshaay dhigaal nacibey dhallaanka dilaay dhafoor moogani dhigii ma arkee
hadmu dhigi ma arkee taariikh dhigan iyo dhigaal ma qoraay adaa dhabarka iyo dhexdaa ishayee miyaad dhedadii miyaad daadaandadii how dhalanteed damiirka dhumiyo dhegaa xidhatee hadmuu dhimirkani wixii dhacay iyo dhibtaa arkayaa wasalaamu calaykum maansadaasina kolley waxaan u malaynayaa nuxurkeeda iyo waxay xambaarsan tahay iyo dee kolley bulshadu iyadaa kala soo bixi doontaa abwen bal maansada saddexaad bal maansada dad badan baa jiroo jacayl hayo oo qaarba si loo haye marka jacaylkani wuxuu uun ka sheekaynayaa qof ka tegay markii hore markii dambena kusoo noqday marka qofkii kalena uu ku diganayo aniga haddagumay dhicin inan saaxiibkaya oo had iyo jeer markaad bulshada iskala nooshahay dhowr qof oo calaacalaya iyo waxaa ku imanaya maxaan ku idhaahdaay dee mid koranaya mushkuladaasaa igu dhacday jacaylba wasaa aan ku falay kolley dee laftarkeyga bal qiso jacayloo la yaab la igu dhacday marka bal waa kaaga warrami doonaad maase kasoo samaysad ama gabaye haye maase maxay marka anigu inankii markaan dareenkiis sheekadiisii uu iga sheekeeyey dhegaystay dareenkiisiina aan dareemay oo kolley dee qolada yadan wax tirtiraahdaa abwaanadiida waa weli kolley bidaar iyo ciro iyo waxba maan nahay halabuuri baanu iska nahay laakiin afka bulshada un baanu dee ku hadalaayo kuma hadallo wax kale marka anigu inankii oo inantii la hadlaya baan iska dhigayaa maansaduna waxay ku bilaabmaysaa sida tan ma ku helay jacaylkii ma handaday naftaadii hamigiiyo xasuustii hibashada ma oydaa hantaaqadii igaadhiyo hor allee sidaydii ma ku jaray higaagii hoha ciilma gegan tahay xididkiiyo halbowluhu ma habaa dareenkii hurgumada ma siiyaa ma u hangeliya tabtaydii ma hadraa afkaagii hawraarta maansada heesaha ma tiriya ma hadaaqay awgay arrinkaad hallaysee hagratee irdhaysiyo libintii ma hibataa hiirtaanyadeedii halacsiga ishaadii ma hawaysataa been hirarka iyo muuqay ma arkaan humaagii dheguhuna hawaankii hadalkiiyo odhaahday ma maqlaan habowgii hugun aadan garanayn hindisaha naftaadii hakadkii ma diidaa hilowgiiyo xasuustii maskaheeda dawdaa hubigaaga laabtiyo hanaqa iyo beerkii cishqigii ma hawlaa huluciyo dabkiisii hurdada iyo jiifkii mallay kaa hor keenaa ma hambaabirtoostaa saqda dhexe habeenkii heellada ma tumataa hiqda iyo dareenkii miyaad huursataa weli waa adigan hadraayee mase haysay ruuxdii huruufka iyo yoolkii hoomay ma eegtaa hareerta iyo dheega hungada iyo cidlada baas dadka kale ma hiiftaa haasaawe beeniyo hawadiyo riyada jaan ma gashaa hilowgii hoobayda caashaqa hiyikaca naftaadii hayaanka iyo geediga heeryada ma sidataa habeenkiiyo dhalaartii maankii halgaadiyo ma habaa jacaylkii ma hujuumay ruuxdii hagardaamadiisii kol haddaad hawiran tahay anna haatan ladanahay ducan kugu hiraabshee hawraarta caashaqa sidaydii la hawshood markaa ma sidaa hibash baan la yidhaahdayo sidaydii la hawshood markaa inaku weliba wuu duceeyeyba inantii ducana wuu ku daray abwan kolley waxaad maaso xiisaheeda wadataa waana maasadeenii saddexaad daawadayaashana kolley waxaan usoo wadnaa toddobaadada soo socda maasooyin isdaba jooga oo ay habeen walba oo khamiisa kala socon doonaan bartaan ku leenahay youtube-ka iyo sidoo kale page-kaan ku leenahay facebook bal abwan maasada afraad ee aan kusoo gebagabeyn doono kolley maasooyinka naga dhammaan maayaan abwan kale waynoo joogaa laakiin toddobaad walba waxaan idila wadaagi doonaa hal maaso ama laba maaso bal maasada afraad maxay odhanaysaa maansada afraad kolley dee bulshadii waynu la hadalnay jacaylkii waynu kasoo hadalnay dhanka ducada waynu kasoo hadalnay dee inaynu kolley ilaahay hortaa in la xusaa mar walba waa muhiim warsamo way fiican tahay waxaa adduunka hagaa ee hogaanka u hayaana dee dawlada maaha waa ilaahay wallah marka mar inaynu ilaahay iska barino weliba gef iyo eedo badan bulshadeenu inta badan way geysataa waxaasoo dhan misna ilaahay dee waxba inaguma qaado
marka aniguna waxaan leeyahay gef baanu galnaa eed baanu samaynaa waanu khaldanaa waxaasaanu samaynaa de ilaah adigu ha nagu qaadin khaladka iyaga ha noo dambi dhaaf unbay maansadana waana magaceedana de waa alla bari markaa maansada haddaan guda galo warsamo waxay odhanaysaa adaa asturee allah adduun iyo aakhiraba asleex iyo khayr na sii iimaanka allow quwey amniga noo suurtageli acmaashaadana na sii itaal malihine allow insaan liitaannahee cadaabtii naga adkee kuwii anbadee allah ilhaamada lagu salliday imaamkoodii dawey allow aaniyo dulmiyo gef iyo eedaan falla